maanta waxaa laga jooga muddo sanada 2021 markii ay fashilantay ku darsashada labada sano marka haddii biri caawa groupka madaxweyne xilka dhamaad Cabdullaahi Farmaajo waxay caawa diyaar u yihiin inay fashiliyaan doorashada aqalka sare biri dhacaysa ama biri dambe ka dhacaysa aqalka hoose hadday taasi ay isku dayaan ay u socon weydo because meesha mucjisa ka socoto Cabdullaahi Farmaajo wax kastuu isku dayo xaq ilaahiyin ah ayaa laga diidaa marka dadka hadda jooga meesha ee musharaxiinta ah xildhibaanada ah dadka gobolka Banaadir degan beesha caalamka dadka Soomaaliyeed yimid dhamaan waa la ogyahay doorashadu inay ku dhacday si boob ah ee beeliba isboobay ee kursi inta qolo ka qaatay ma jiro ee reerkiiba is wada boobay marka waxa intaas looga samreeyaa bal mar ha laga gudbo 62 sanadood oo taariikh madow aan soo martay waxaan soo maray xisbiyo hogaamiye kooxeedyo ah oo ama ha ka yimaadaan gobolada waqooyi ama gobolada koonfur ahaayeen oo ra'yi adag ku taagnaa haddana waxaan soo maray xisbiyo dictator ah oo mataqaana waxa kamid ah kacaanka revolution-ka ah ee dalka soo maray haddana waxaan soo maray qabaa'ilo hogaamiye kooxeedyo ah hadda farmacarto waxaan soo maray madaxweynayaal hogaamiye kooxeedyo ah oo kooxo wata marka waxa weeye dadka golahan ku jira dhagaha taaga arintii April 25 2021 iyo April 25 2022 hadduu markan isku dayo inuu fashiliyo oo ku fashilanto waxay noqonaysaa markii horena doorashada laga wareejiyay markana musharaxnimada laga joojinaya marka caawa la socda isagu taageerayaasha uu wataa waxa weeye waa taliyaasha ciidanka ee isaga xaqiisa ama odawaha noqdaan odaga xijaar aan kuma dambaabi karo waxa Yaasiin Faray Niisa Biixi oo ila deerkiisa wiilasha yaryar ee darajada beenta loo taxay oo dhan waxa soo dhan waxa la in check point-ida bir la xiro in Maka al-Mukarrama la xiro in mataqaana muxuu ahaa Shalaame Watore ama mataqaana wadada ka soo baxda la xiro in Madiina Gate la xiro in Afisyoon wadada xamarjada soo marta la xiro in dadka la arbushaan raba markaas oo la socda wadanjir Maxamed Cali salaamaya meesha mucjisa ka socota mucjisa labaad baana ka socota oo la yaab leh marka waa ma oran karno waxa dadka soo wada aad nasiib badan markasto oo ama shisheeye soo weeraro ama sokoye soo weeraro ilaahay baa mataqaana badbaadiya wiilka biri dhalan doona 20 sano kadib insha Allah wuxuu 20 ka sano soo socda waxa taariikh bay noqon doontaa Soomaaliya oo degan ayaa doorashan 2022 noo bilaaban doonta waxa soo gabagabeynayna dictator wadani beenlow ah wadaad beenlow ah hadda 2022 soo gabagabeynayna